labada dhinac waxay ku heshiyeen in wax ku qaybsiga nidaamka beeleedka 4.5 aan lagu soo xuli doonin xildhibaanada baarlamaanka qaran laguna dhaqmi doonin Soomaaliya wixii ka dambeeya 2016 1.2 dowladda federaalka iyo dowladda Puntland waxay ku heshiyeen in la dhiso gudiyada doorashada ee 2016 ayna u dhan yihiin dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah 1.3 labada dhinac waxay ku heshiyeen in beesha caalamka si dhow ula soconayso hirgelinta doorashooyinka 2016 si loo helo hufnaan iyo sinaan. waxaan rabaa inaan sheego maanta heshiiska kan ka dhacay heshiis taariikhi ah weeye heshiis sameeyay weeye astaan cusub iyo sumad cusub u sameeyay Soomaaliya heshiis weeye aan aaminsanahay inuu waqtiga dheer iyo waqtiga dhowba u yahay horumar Soomaaliya iyo Puntlandba adkaynaya xoojinayana geedi socodka nabadda Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed labadaba waxaan leenahay wixii Soomaali u wanaagsan baa Puntland u wanaagsan wixii Puntland u wanaagsanna Soomaali waa u wanaagsan yihiin marka maanta waxa sharaf noo ah heshiiska halka ku gaarnay inuu heshiis taariikhi ah heshiis ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Puntland iyo shacabkeedaba u noqon doona arrin yaani faa'iido baarlamaan Soomaaliyeed aan suuqin uu ka soo baxo dhaafiyo dalkan dhibaatada iyo midda amniga midda siyaasadeed ee taala kusoo dawaala xasilooni waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo inuu waxda ka dambaysa uu noqdo process degdeg ah oo dalka kan amni ahaan iyo siyaasad ahaan ka saar xaaladda degan xalay magaalada Garowe oo ra'iisul wasaarihii Soomaaliya iyo madaxweynihii Puntland iyo qayb beesha caalamka kamid ah wakiilka xogayaha guud qaramada midoobay iyo gudoomiyaha golaha wasiirada igad safiirka wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya iyo EU dowladaha Yurub oo midoobay safiirkoodii iyo xafiisyada igada secretary caamka ah ku jiro ay joogeen xalay halkaas in lagu saxeexay in dowladda Puntland ay aqbashay in ay qaadato nidaamkii faasidka ahaa ummadda kala qaybiyay oo qabaayil kala tuuray oo magaceedu xumeeyay oo ilaa muddo lagu soo dhaqmayo lagu khasaaray oo Puntland kaliya walay diidanay oo ummadda Soomaaliyeed inteeda kale ay Puntland ka dhursugaysay in halka lagu saxeexo inaan maanta ummadda Soomaaliyeed u sheego inaan aad uga xumahay sidaan uga soo horjeedin oo uga soo horjeedo laakiin aanan cod ku lahayn oo waxba ka qaban karin aad baan uga xumaa waxaan go'aansaday inaan maanta inii sheego aad baahisaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan u sheegaya meel kasta ha joogtee waxa kaliya aan kaga dabatay karaa arintaas inay tahay intaan noolahay inaan ka harin in aan si kastaba ha ku yimaadeen dadka la soo xuli doono nidaamkan hadda xal la go'aansaday ugu dambeyntiisii ku imaanaya inaan nahay murashax u taagan madaxweynaha dowladda Soomaaliyeed ee 2016 inaan ahay taasaan isla waxbaad ka qaban karaysa haddii Ilaahay idmo oo aan ku guuleysto ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa anigu hadda maanta programka halka ka akhriyo maayo laakiin waxaan u sheegayaa inaan si daacad ugu shaqayn doono nidaamka federaalka hirgelin doono haddii Ilaahay noo ila qabto raggeedana aan u xulan karayo aan nabadii sidii loogu heshiin lahaa loo soo dabaali lahaa dalka Soomaaliyeed aan ka shaqayn doono sidaan Puntland uga shaqeeyay markaan joogay